maadaama aniga iyo saaxiibaday aan safar ka soo galnay waxaana loo diyaariyay caano aan ku sugno cashada waxaana intii subaxii ka dhimanayd habeenkaasi aan ku qaadanay daawashada TV-ga ETN oo isla waqtigaasi aan ka soconay maalin oo aan soo haynay wadada dheer ee Caluula waxaan markii dambe tagnay degmada Baargaal oo wax badan kaga duwan meelihii aan soo aragnay Baargaal waxa marta badda India oo waxa ay isku cimilo yihiin magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waana meel aad ku xasuusanayso taariikhii gobolka waxa ku yaala daarihii qadiimiga ahaa ee Boqor Cismaan oo isugu jira qaybo kala duwan markaan waxaan ku soo dhaweynaa idinka qoladeena waxaan ku soo dhaweynaa deegaanka aan mas'uulka ka nahay aad baan ku soo dhaweynaa waxaan idinka sheekaynayaa taariikhda uu leeyahay deegaanka deegaankana waxa weeye deegaan taariikh dheer leh wuxuu jiray adigu deegaanka wadanka la deganaa waxa weeye qarni iyo shiyada qarni iyo bar meelaha waxa weeye meeshii mujirtaniga la oran jiray gobolka la oran jiray meeshii laga xukumo jiray boqortooyada joogi jirtay weeye min gaalkacayo ilaa wadankaas meeshii laga xukumi jiray weeye aasaartan hadda waa taala waxa meelana hore u duubteen oo guriyihii boqortooyada iyo wixii waa yaalin aad bay u tahay meel aad qadiima oo aad u taariikh dheer khayraad badan bay leedahay hadday tahay xagga badda hadday tahay xagga biriga xoola dhaqatada iyo xijiyeed oo aan dhulka kale lahayn bay leedahay aad meel u taariikhdeedu u wacan tahay weeye hadda waxa ku soo kordhay awal laba degmo oo kala xiran bay ahayd Caluule lafa goray oo hadda loo furay hadda way isu furatay khayraadku sidii hore ka bedelan yahay oo dalka la isu socdo marka aad meel u qiimo badan weeye xagga badda hadii la eego iyo xagga biriga hadii la eego aad iyo aad bay u qiimo badan tahay marka idinkana way ku soo dhaweeyeen hadii waxa la gaaray waqtigii aan bixi lahayn oo waa la diyaar garoobayaa nasiib darro baabuurkii aan la soconay lug ayaa ka xumaatay darawalkii gaariga ayaa iga codsaday inaan xoog u qabto halka uu ka imaanayo naqaska balse anigoon aqoon u lahayn dhinaca birta waa aan ku fashilmay balse saaxiibaday waxay ku guuleysteen inaan safarkii sii wadano kaasi oo ku ekaa degmada Bareedo indhahaaga waxay qabanayaan muuqaalo qurux badan iyo xayawaanaad kala jaada shaki ayaa kaa gelaya inta ay isku jiraan buurta iyo daruurta waxaynu ku sii xigi doonaa beerta meesha la xoogaad la yiraahdo iyada korbeed lama bixinayo waa beer heeftaasna beer la yiraahdo xayslaha ku taliyaan way sii mari doonaa insha Allah waxaan sii mari toogaya fagoolo la yiraahdo iyada magaalaha oo hadda la aasaasay waan sii mari doonaa dabeedna halka waxay uga gudbaynaa lafa goray ma fuuleynaa markaas dabeedna waxaan sayma iyo gelinaa beerahaas taas sii maray meesha oo qurux badneed asxaabtii meesha joogay waxa ay bilaabeen inay sawirro wada galaan balse safarkii faray kama qodna gobolka bari aad horay waxa uu adkayd in meelaha qaar ay baabuurtu gaaraan sababtan waxay ahayd wadada oo xirnayd balse dadaal kadib waxaa lagu guuleystay in dib loo furo bacdama ay iskaashi sameeyeen bulshada Calbari horeyna waxa isugu dayay dawladihii Talyaaniga iyo Siyaad Barre wadada lafa goray ayaa noqotay wada ay si wada jir u isticmaali karaan baabuurta gaar ahaan kuwa ridootada leh ee mari kara dhagaxaanta waxaa haddaba habkii ay ku suurta gashay furitaanka wadada lafa goray ka waramaya mid ka mid ah deegaanka Calbari oo isagu dhibaato kala soo kulmay asaaskeedii markii aanu asaasnay maalintii noogu horeysay waxa weeye waxay ahayd meel haadka duula mooye wax kale oo Ilaahay abuuray
oo inta adin ku socota ah ayan marin karin maalintii la bilaabayay dharinta waxaanu isku daynay oo samaynay cabir khayd isbaaga ah oo qofku uu beerka ku soconayo ilaa iyo meesha uu ka gaarayo khaydku si halkaa looga jeexo waddo caalami ah waxa kale oo jirta shaqaalihii markii aanu samaynay isbaagadii aanu xirray shaqaalihii inta badan waxay ku soo hareen gadaal sababtoo ah nin waliba wuxuu kala baqay naftiisa gelitaanka siduu u geli lahaa meesha waxaanu isweydiinay haddii aydanaan yahow meesha aydanaan geli karin innagii baa meesha shaqaale u ah yaa kale oo loo doonayaa oo meesha wax ka qabanaya kadib waxaanu samaynay meel dadku uu mari karo kadib dadkii sidaasaa loo galay nin waliba wuxuu qaabsaday aag ilaa 2 mitir buu qabsaday waa uu fariistay haddana halkaasuu yaambadiisii iyo garweyntiisii iyo birtiisii halkaasuu iyo badilkiisii halkaasuu shaqadii ka bilaabay kadib halkaa waxaa ka soo baxday waddo caalami ah waxayse noogu siiyaa badnayd maalin maalmaha ka mid ah meesha magaceeda la yidhaahdo dharinta annaga oo saaran meel dherarkeedu gaarayo ilaa 450 mitir ooga sare ah bannaanku naga sii hoosay ilaa iyo xeebta inta laga gaarayo nin kale oo ila joogay oo aanu halkaa ka soo wada daadinaynay dhagxaan waa uu soo fikado waa soo dhaaf kolkuu saa ay garmarayay baan waxaan ku dhigay kuleetiga qabtay badhamadii waa go'een dhagixaan qabsaday anigana way fuqay waxaan ku wada dhacnay meel dadban baa ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu rid maalintaasay igu sii dhib badnay marka waxaan hadda aan ku soo gabagabeynayaa waddada lafa goray in hadda weli aanu gacanta ku hayno oo marnaba gacanta aan lagala baxaynin hay-adahana waxaan uga baahannahay in ay taageero caalamiya naga siiyaan meelaha u baahan dayactirka sida meelaha biyo xirka oo kale sidaasaanu leenahay